sheekh sayladani waxay leedahay waa su'aal kulay dheer muhiimadeeduna ay tahay waa gabadh imaga kulay hooyo carruur waaweyn haysata waxay tiri sheekh aabahay iyo hooyaday bar hore ayay kala tageen marka dabadeeto wuxuu aabahay ku noolaa Sacuudiga ayuu ku noolaa nin baa markaa soo doontay dabeetana waxaan ku wargeliyay aabahay inuu i bixiyo dabeetana aabahay arinkaasi uu diiday wakiilkii ugu xigay wakiilkiisa ku xigay ama cidii arinkaasi uu xil saaran lahaa ugu soo dhaweynaa uu ku wareejin waayay marka su'aasha waxay ku soo qortay wuxuu markaa baheed ku yiri shaqo markaa kuma lihi qaadigii maxkamadda fadhiyay baa markaa imeheriyay muddo ka bacdi mar ay reerkii u dhismay oo gurigii dhismay oo carruurtii waaweynaatay ayuu aabahay igu yiri hadda ma ka muheriyaa arinka noocaas ee sheekh xumkeeda ka waran guriga yar reerkaasi warkiisu ma ansaxsan yahay afiiduna wajazaakallahu khayran waalidku hadduu diido oo dee waalidkii aabihii baa weliya oo dee ruuxii dumarka ahaa weligeedu shareecada waa aabaheed ama walaalkeed ama tartiibtii maaragtay weliga ama adeerkeed ama kolba ciddii joogtay haddaba hadduu diido oo dee sabab sharciya aanu dee wax sabab sharciyan ahayn hadduu sabab sharciya hayo dee waa la dhegaysanaya idhaahdo sababtaa sharcigaasan dee ugu diidaya ama qofkaasi waa faasiq ama qofkaasi khamrigu cabbaa ama dee sabab sharciya waalidku keena waa sax laakiin sabab la'aan sabab sharciya deh wax sabab sharciya ma hayo ama dee waxyaabo iska dhaqana ama waxyaabo dee qabiila adigu waxaan dee caadi ahayn waxaan sax ahayn oo dee shareecada aan waafaqsanayn buu ugu diidaya ama isagaaba si kale qofka u diidanba waana dhacdaa qaadigu hadduu meeriyo qaadigaasi waa sax weeyaan maadaama dee sabab sharciya aan ugu mancin oo sabab sharci aanay jirin oo qaadigii loo geeyo oo qaadigii magaalada joogay uu bixiyo ama uu meheriyo aqdigaasi waa sax waana ansaxaya dee marka dambena u duceeyo baa la odhanaya waa waalide inuu dee reerkii iyo qoyskii qaadigii uu dee meheriyey inuu u duceeyo marka u duceeyo baa la odhanaya laakiin aqdigaasi waa sax waana saxiix awlaadaasina waa sax gurigaasina waa sharci barakallahu fiikum جزاك الله خير الجزاء